saaxiibayaal soo dhawaada warbixintan waxaan ku eegi doonaa isbedelka iyo horumarka lagu sameynayo baasaboorka Soomaaliya iyo dalku galka la'aanta loogu tagi karo kadib markii la aqbalay in Soomaaliya ay xubin ka noqoto dalalka ku midoobay bulshada Bariga Afrika bishii Maarso ee sanadkan waxaa jiray shirar xiriir ah oo dhexmaraya Soomaaliya iyo dalal kale oo xubnaha ka ah kuwaas oo ku aadanaa sidii Soomaaliya ay u dhameystiri lahayd shuruudihii loogu baahnaa Soomaaliya ayaana weli ku howlan dhameystirka waxyaabaha ugu dhiman buuxinta shuruudaha iyadoo ay kamid tahay waxyaabaha la xiriira baasaboorka Soomaaliya ayaa lagu wadaa inuu kamid noqdo waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga shaqeynayo si uu noqdo mid kamid ah baasaboorada dalalka Bariga Afrika ilaa haatan mas'uuliyiinta Soomaalida isla markaana uu warkacayo Dr. Cabdisalaan Cumar Hadiye oo ah ergiga gaarka ah ee Soomaaliya u qaabilsan bulshada Bariga Afrika ayaa ka qayb galay kulamo socon doono ilaa Jimcaha kuwaas oo looga arisanayo sidii Soomaaliya ay u dhameystiri lahayd howlahan waaxda socdaalka ee Soomaaliya ayaa haatan ku howlan habeynta iyo isku dubaridka baasaboorka Soomaaliya sidiisii ayuu ahaan doonaa oo waxba lagama bedeli doono kaliya waxa lagu qori doonaa asaan muujinaysa inuu yahay baasaboor laga leeyahay mid kamid ah dalalka bulshada Bariga Afrika ayuu yiri Dr. Cabdisalaan Cumar Hadiye oo ah ergiga gaarka ee Soomaaliya u qaabilsan bulshada Bariga Afrika sidoo kale waxa uu sheegay inay muhiim tahay in laga shaqeeyo in muwaadiniinta Soomaaliyeed ay tagaan dalalka Bariga Afrika iyagoo aan u baahnayn wax dalku gala Mahad Cabdi oo ah la taliye sare oo ka howlgala hay'adda socdaalka iyo jinsiyadda Soomaaliya oo BBC-da ugu waramay ayaa yiri waxaan hadda ku jirnaa shaqada howlgelinta baasaboorka bulshada Bariga Afrika ee Soomaaliya hadda shirada ayaa noo socda waan rajaynaynaa in aan ku guuleysan doono ayuu yiri waxa uu sheegay in ay qaadan karto muddo sanad ilaa 2 sano balse haatan uu si habsami leh u socdo howlaha dardargelinta ee la xiriira horumarinta baasaboorka Soomaaliya ma jiro wax ka bedel lagu sameynayo baasaboorka guud ahaan Soomaaliya balse waxa aan ka bedeli doonaa daboolka ama qalfoofka sare waxaana lagu qori doonaa magaca bulshada Bariga Afrika midabkan waa laga bedeli doonaa sida uu qorshuhu yahay laakiin bedelka gudaha ma jiri doono ayuu si raaciyay Mahad Cabdi dhinaca kale waxa uu sheegay in aysan waxba iska bedeli doonin baasaboorada serviceka ee shaqaalaha dawladda iyo kan kale ee diblomaatiga balse kaliya qaybta sare laga bedeli doono kan caadiga ah ee dadweynaha Dr. Cabdisalaan Cumar Hadiye oo hergiga gaarka ee Soomaaliya u qaabilsan bulshada Bariga Afrika ayaa isna ka warbixiyay waxyaabaha kale ee Soomaaliya ay ugu howlan tahay si ay shuruudaha u buuxiso isagoo BBC-da la hadlay waxa uu yiri waxyaabahan ka shaqeynayno waxa kamid ah sidii systemkan la isugu xiri lahaa guud ahaan dalalka Bariga Afrika iyo in laga shaqeeyo howlaha kasamka si ay u suura gasho in dekad waliba waxa laga soo dejin karo ayuu yiri waxa kale uu sheegay in qaabka qaadista lacagta laga shaqeynayo iyo sidoo kale aakhirka sidii loo sameyn lahaa lacag isku mid ah taas oo uu sheegay in ay qaadan karto muddo sanada Soomaaliya si ay ugu mid noqoto bulshada Bariga Afrika waxa ay soo dooran doontaa ilaa 9 xubnood oo ku matali doona golaha baarlamaanka ee bulshada Bariga Afrika iyadoo haatanba uu qorshuhu socdo wax madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu dhawaan ka dhawaajiyay in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo dooran doono xubnahan iyadoo lagu wado inta aan la gaarin bisha 8aad ee sanadkan kadib markii si rasmi ah loogu soo dhaweeyay Soomaaliya ururka Bariga Afrika ayaa waxa tirada baarlamaanka Bariga Afrika ay noqon doontaa 82 xildhibaan ilaa 72 kamid ah xubnahan ayaa xildhibaano la soo doorto halka 8na ay wasiiro yihiin xogeyaha guud ee ururka iyo xubin ah la taliyaha dhanka sharciga waxa sidoo kale Soomaaliya laga filayaa in ay soo magacaabaan garsoore kamid noqon doona xubnaha garsoorayaasha ee maxkamadda cadaaladda bulshada Bariga Afrika dhinaca kale waxaynu eegi doonaa maxaan ka ognahay diyaarad dhowr mar gashay shil mar ay ku dhinteen boqolaalka qof ee baaritaankeeda uu hadda u socdo kadib markii diyaaradan la yiraahdo Boeing 737 Max 8 ay soo wajahday walaac dhanka ammaanka ah xilli ay si qatar ah ugu leexatay dhanka bidix iyo midig iyadoo ku jirtay duulimaad ayaa waxa maamulka duulista ee Mareykanka waxa uu furay baaritaan la xiriira arrinkan oo ay shirkadu sameysay waxa la sheegay in diyaaradan Southwest Airlines oo gudaha garoonka loogu yeero dead roll ay la kulantay xaalad khalkhal ah kadib markii dhanka bidix iyo midigba ay dhowr mar u leexleexatay iyadoo u muuqata mid sabeynaysa maamulka duulimaadyada Mareykanka ayaa sheegay in bishii la soo dhaafay uu shilkan ku dhacay diyaarada ka soo duushay magaalada la yiraahdo Phoenix ee gobolka Arizona kuna socotay Oakland ee California diyaaradan oo gariir daran oo dhanka bidix iyo midig ah la kulantay
waa isla diyaaradii ku burburtay Itoobiya iyo Indonesia dhowr sano ka hor oo ay ku dhinteen ilaa 346 qof. Shilkaasi kadib waxaa la xusuustaa in diyaaradaha Boeing 737 Max laga joojiyay duulimaadyada adduunka oo dhan muddo ka badan 18 bilood. Shilkan kadib Boeing waxay baaritaan ku hayaan maamulka duulista ee Mareykanka, gaar ahaan kuwa la xiriira nooca diyaaradaha Max-ka. Diyaaradan Southwest Airlines Boeing 737-800 ayaa la baarayaa kadib markii daboolka motorka uu ka kacay markii ay duuleysay. Intaa waxaa dheer, dhowr bilood ka hor albaabka degdega ah ee diyaaradan Alaska Airlines 737 Max 9 ayaa hadda hawada waxay ku jirtay waxay la kulantay cilad kale. Maamulka duulista hawada ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in diyaaradan ay si nabad ah ku degtay kadib markii diyaaraddu ay la kulantay cilad xooggan oo ay suura gashay in ay dib u soo caga dhigato. Si kastaba ha ahaatee, qaybta dambe ee diyaaradan oo shaqaynaysay muddo 2 sano ayaa waxaa soo gaaray burbur xooggan sida ay saraakiishu sheegeen. Dhowaan kooxda badqabka duulista ayaa ku eedeeyay Boeing in aysan si ku filan u siin tayada habka wax soo saarka diyaaradaha. Diyaaradan ayaa u gudbisay saraakiisha duulista qorshe uu ogolaanaya in ay hoos u dhigto wax soo saarka diyaaradan Max, isla markaana ay xalliso dhibaatooyinka ka dhashay inta badan. Sanadkii hore, isla diyaarad nooceedu uu yahay Southwest Airlines 737 Max ayaa la kulantay cilad kale. Aaladaha degdega ah ayaa aad ugu sii darnaa markii uu qiiq iyo uuro gudaha u galay diyaaradda. Shaqaalihii duulimaadku waxa ay raaceen habraacyada waxayna sameeyeen deganaansho degdeg ah garoomada diyaaradaha. Hadafku waxa uu ahaa in la yareeyo khatarta musiibada haddii duuliyaashu ay la kulmaan dhacdo la mid ah tan. Nidaamkan sifo badbaadinta leh ee uu sameeyay motorka CFM International waxa uu u shaqeynayay sidii loogu talagalay in lagu xakameeyo waxyeelada iyo jabka suuragalka ah ee mashiinka. Ma jiraan war sheegaya in dhaawacyo halis ay soo gaareen rakaabkii saarnaa diyaaradda. Diyaaradda ayaa ahayd Max 8 waxayna jirtay ku dhawaad 1 sano, waxaana saarnaa 168 qof. Wax yar kadib markii ay kacday, duuliyaha ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah wuxuuna sheegay inuu u baahan yahay inuu ku laabto garoonka. Boeing ayaa hoos u dhigtay wax soo saarkeeda, waxaana bishii hore ay soo bandhigtay qorshe howleed oo lagu golan yahay in lagu xalliyo arrimahan.